ergeyga gaarka ah ee geeska Afrika u qaabilsan Mareykanka Mike Hammer ayaa soo gaaray Ethiopia si uu dhinacyada ku dagaalamaya waqooyiga Ethiopia ugu cadaadiyo wadahadal nabadeed. dadka falanqeeya siyaasadda ayaa haddaba haatan waxa ay sheegayaan sababta ergeyga Mareykanka imika ku soo celisay Addis Ababa inay tahay ciidankii Tigreega oo laga awood batay ayay leeyihiin taasoo haatan horsocodkii iyo xoogii ay lahaayeen aweeqantay sababtuna tahay ciidanka Ethiopia iyo Eritrea ee dhabarjabinta ku sameeyay gaar ahaan ciidanka ka soo weeraray Adigaraad iyo Salambesa kuwaasoo markaasi ciidamadii isku dhafka Ethiopia iyo Eritrea marka shaxdii dagaalka ayaa wax weyn ay ka bedeshay marka xukuumadda Ethiopia iyadoo ciidankeedii dawladda Ethiopia ay geysay Eritrea oo diyaarado waaweyn ay ku daabushay kana dejisay Massawa kadibna halkaasi ay ku soo marka biireen ama jointly ay markaasi si wada jir ah ay ugu midoobeen xoogaga ciidamada Ethiopia iyo Eritrea kuwaasi oo haatan weeraro wada jir ah la ku soo qaadaya Tigreega marka waxa la yiri Eritrea laguma qabsan karo weerarka dhabarjabinta ah waayo waxa haatan dagaalka qaaday waxa la oranayaa waa ciidanka Ethiopia oo Eritrea ka soo weeraray marka halka weerarka ka soo sameeyay marka reer galbeedku waxba ma weydiin karaan Eritrea oo waxba kuma qabsan karaan oo ma oran karaan ciidankii Eritrea weeraray Tigray afweerku wuxuu taagan yahay oo ku doodaya Ethiopia iyadiiba isdilaysa anigu shuqul kuma lihi sida darteed waxa haatan weerarka qaaday waa ciidanka Ethiopia ayuu taagan yahay marka siyaasadda dagaalka waa laga badiyay baa la oran karaa dhinaca laga eego reer galbeedka iyo Tigray ayaa la is oran karaa marka shaxdii ay dajiyeen iyagu haatan markaasi waxba iska bedelay inkastoo reer galbeedku ay dhax inay yihiin ay ku doodayaan laakiin si taageerayaasha Ethiopia waxay sheegaan marka reer galbeedku Tigray la socdaan adu waxa la oran karaa shaxdii uu Tigray dajistay marka ciidanka Tigraygu haatan waa laga badiyay Eritrea marka waxay ku doodaysaa marka shuqul kuma lihi waxa haatan dhabarjabinta soo sameeyay waa ciidankii Ethiopia nimankiina haatan waa kun dhabarka laga soo weeraray marka waxa ay haatan keentay baa la yiri marka in xagga nabadda dib loogu soo noqdo sababtaasi ayay ku doodayaan dadka falanqeeya marka siyaasadda Ethiopia u dhuun daloola iyo arrimaha militarigu inay tahay sababta keentay in Mike Hammer uu ku soo noqdo markaasi haatan Addis Ababa si uu arrinka nabadda uga taliyo oo miiskii wada hadallada uu soo celiyo kooxihii markaasi dhinacyada ee dawladda Ethiopia iyo markaasi xoogagga Tigreega laakiin dhinaca marka la eego ergeygaasi waxa uu isagu ku doodayaa markaa dhinaca Mareykanku in arrinta haatan ergeyga u soo noqday ay tahay nabadda in markaasi iyo miiska wada xaajoodka lagu soo laabto maadaama dagaalku markaasi shacabku ay ku dhimanayaan oo markaa cidda baaba'aysa ay tahay shacabka oo loo arxamo ay tahay si kasta afhayeenka xoogaga TPLF ama Tigreega Getachew Reda ayaa sheegay in ciidamada Eritrea ay duqeymo xiriir ah ka fulinayaan nawaaxiga Adigaraad ee Tigray qoraal uu Getachew Reda ku soo qoray Twitterkiisa ayuu ku sheegay in ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia ay weeraro ku qaadayaan markaasi deegaanada Rama Tisarona Salambesa iyo Dalol balse wuxuu intaasi ku daray in ciidamadoodu si adag iskaga difaaceen weerarkaasi walina uu socdo haddaba sidii aan shalay idiin sheegay barnaamijkeena shalay ku soo qaadanay Tigreegu dhinaca Adigaraad ayaa laga soo weeraraya waana shalay idinku la weeraradu ay markaasi waxay noqonaysaa furin cusub marka Adigaraad xoogaga Tigreega si markaasi awoodooda loo wiiqo oo loo baabiyo oo horumarkan ay sameynayaan iyo deegaanada kale ku duulayaan ee ay soo qabsanayaan ee marka deegaanada Axmaarada iyo marka Canfarta dhulka ay tagayaan oo dhan si loo joojiyo ayaa marka dhabarka laga yimid haddaba weeraradan dhabarka laga yimid iyo furimahan markaasi ka bilaabmay deegaanadii ay Tigreegu gudihiisa ku yaalay ee waliba dhinaca Eritrea xigay ayaa haatan waxay keenaysaa marka xoogaga TPLF ama Tigreegu in ay ku mashquulaan sidii ay u difaaci lahaayeen deegaanadooda xoogii iyo awoodii ay lahaayeen ee markaasi ay la iska caabi kari lahaayeen marka ay ku weerar tagayeen haatan waxa isku bedelaysaa markaasi ama sida ay arkaynaba dawiigan ugu dambeeyay afartii cisho ugu dambeysay waxa ay noqdeen markaasi marka istifaacid ah ay haatan galayaan haddaba waxa sida oo kale jirta sida oo kale waxa la sheegay xoogaga markaasi ciidanka Ethiopia iyo xooga huwanta maleeshiyadka Axmaarada in ay markaa ka soo gudbeen wabiga
tasadka markaasi kala qaybiya ay la oran karaa markaasi axmaarada iyo tigreega gaar ahaan dhinacan moogtay loo imka haystaan markaasi axmaarada iyo ciidanka Itoobiya ee loo yaqaan galbeedka Tigray webigaasa markaasi qaybiya oo bariya galbeed u qaybiya inta wixii galbeed ka xiga waa intii haysatay markaasi ciidanka Itoobiya ee dhinaca Humeera iyo webiga marka dhinaciisa barina waa Tigreega caadiga markaasi goboladiisii marka haatan waxa la sheegay ciidanka Itoobiya inay ka soo gudbeen ba webiga oo dhinaca bari soo gudbeen oo daalal tan u sheegay imaka Tajureeda uu noo sheegay lagu soo duulay xooga Tigreega ciidanka Itoobiya ka soo duuleen waxay ku taalaa dhinaca bariga waana deegaanadii caadiga ah markaasi Tigreegu ay lahaayeen haddaba haatan waxa muuqataba la leeyahay in xoog iyo awoodii ay lahaayeen markaasi ciidanka Tigreegu dhabar jabintaasi haatan ay keentay marka inay weeqanto oo imka waxa ay galayaan bal heer istifaacida